waxaa maanta si rasmi ah uga bilaabmay dowladda hoose ee degmada Laascaanood qaadashada kaarka madaniga ah. Munaasabadan lagu furayay qaadashada kaarka dhalashada ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood, taliyaha qaybta booliska gobolka Sool, iyagoo ku dheeraaday faa'iidada kaarkani. maanta oo tahay 20kii bishii 6 2016 xafladan ay halkan ku daafurayno qolka dowladda hoose. xafladaas oo ku saabsan diiwaangelinta madaniga ahayd iyadoo maanta laga bilaabo dadweynaha ku nool degmada Laascaanood inay kaarkii qaataan dhalashada. kulli kaarkaas wax badan uu ku anfacaya qof walba. waxaan soo jeedin lahaa qof walba kaarka qaado adun buu ku anfacaya. waxa aqoonsiga wax ciyaar ma aha, beerun buu ka anfacaya. marka dadweynaha waxaan leeyahay kaarka qaata, diiwaangelintana waxaan rajeynaynaa insha Allah inay fududeyso. saaka waxaa halkan laga daafurayaa kaarkii aqoonsiga oo ay bixinayaan dowladaha hoose. waa muhiim in la qaato kaarka aqoonsiga iyadoo arrimo badan ay ku xirmayaan uuna yahay shayga ugu muhiimsan ee saaka halkaa laga faa'iideeyo. Wassalaamu calaykum. aad iyo aad bay magaalada ugu baahnayd, gaar ahaan qaybaha kala duwan arrimaha bulshada. waxaana loo baahan yahay in dadka wax loogu qabto siday u qaadan lahaayeen iyo dastuurkoodana waynu aragnaa, rag baa inoo wada. waxaanu ku rajo weynaa in la qaato, dadku qaato kaadharka dhalashada ah oo sugnaanta ah. weliba waxaa jira meelayo salaamaya shirka iyo madashan lagu daafurayo kaarka dhalashada ee aqoonsiga qofka. runtii qofka qaatay ama waxa laga weydiiyay ayaa garanaya kaarkan waxa uu tarayo, waxa uu wax ka taraya, waxa uu wuxuu tarayaa qofka muwaadinka ah ee kaarka qaatay ee la soo baxay. waxa ugu liitay uu qabta waa arjigu meel ka qoranayo meel qoranayo. hadii uu yahay kaarkii keen ee arjigii qoran kalimaysa. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay barasaabka gobolka Sool isagoo sheegay inuu nabadgelyada wax ka tari doono. kalaba muhiimadii maanta xafladan waxa dhamay madaxdii horeysay taliyaha qaybta iyo maayirka xildhibaanada waa in la qaato civil card registration card oo ah qofka inuu markaa muwaadin oo qaato kaarka ay kaga xirmi doonto nolosha oo dhan baa ku xirmaysa hadda ka dambeeya. wadoogeeda in wasaaradda arrimaha gudaha iminka dhowr bilood ka hor bay go'aan soo saartay waa qofna inaan socon karin, abaaradu inaan lacag bixin karin ilaa la qaato kaarka, inaan hay'adaha dawladdu wax service u qabanin. laakiin taan ka hadlaan ku maadaama Sool laga bilaabay qofka hadduu reer Sool sheegto kuma jiro amarkaas, laakiin wixii hadda ka dambeeya amarkaas wuu qabanaya. amarkaas wuu ugu fulayaa mar haddii la bilaabo wixii ka dambeeya amarkaas wuu ugu fulayaa. dawladda hoose waxa uu qabanay saldhigaada ka dacwoon kareen baa maaragtay maxkamadaada wax ka qabsan kareen. hay'adaha dawladdu waxay kula qabanayaan haddii aad kaarkaas idin ma jiro. gabagabadii waxaa munaasabadan soo afmeeray maayarka degmada Laascaanood Cismaan Saleebaan Jaamac isagoo ugu baaqay bulshada inay qaataan kaarkani. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa kaarka laga hadlay waa kaarka aqoonsiga ee dhalashada. kaarkan wuxuu cadeynayaa qofku inuu muwaadin yahay, deegaanka uu joogo ama Soomaaliland inuu yahay. haddaan la qaadana xilli uu adag yahay baa la qaadan doonaa. waxaan leeyahay ha la qaato. wuxuu ka anfacayaa gaar ahaan shaqaalaha dawladda hadday kaarkaas sida shaqadooda joogi maayaan, hadday dawladda hoose shaqaaleeda tahay, hadday wasaaradaha tahay, hadday kuwa maxkamadaha ka shaqeynaya tahay. waa inay shaqaale markuu qofku yahay waa inuu kaarkaa haystaa. waxaa kaloo ku xigay dadweynaha dhammaantood way u baahan yihiin kaarka, way u baahan yihiin. safar ma geli karo qofka hadda kaarka haysan, xawaalo lacag ka qaadan maayo hadda kaarka haysan, hudheel ma seexan karayo hadda kaarka haysan. kaarka muhiim wax badan buu xambaarsan yahay. waxaan leeyahay ha la qaato. weliba maruu adag yahay baa la qaadan doonaa haddaan hadda la qaado. waxaan leeyahay kaarka halkaasaanu soo diyaarinay, shaqaalaha loo soo qoray, diyaar baan u nahay dowladda hoose. cid kasta oo qaadanaysana si jajaban oo si diyaar ah loo soo dhaweyn doonaa, waa lagu soo talageli doonaa. xafiiskii waa furan yahay maanta laga bilaabo. xafiiskii waanu furay, dowladda hoose dhexdeedu ka furan yahay. cid walba oo rabtana waa u diyaar baan inaan kaarka siino, dadkuna anfacaya. dowladda hoosena diyaar waxay u tahay waxa la wixii waajibaad ee kaarkan dadkii diyaarka ah inay u fududeyso si ugu jar lahayd. laba qaybood baanu jaraynaa, adigu kii dadka weynay kii dhalashada carruurta baanu jaraynaa. insha Allah waa naga diyaar anaga, dadkana waan ku baraarujinaynaa inay qaataan. wabillahi tawfiiq. Mawlid Ali, Star TV, Laascaanood.